بسم الله الحمد لله. dunidu maanta waxay ka aada uga cabanaysaa waxaa la yidhahdaa xagjirnimo. laakiin su-aasha isweydiinta le waxa weeyaan maxaa xagjirnimada yaa abuura, maxaa sababay inay timaado? meel kasta oo dunida ka mid ah oo cadaalad iyo xorriyad iyo aqoon ama cilmi uu jiro, dadku wuxuu ku nooliyay deganaanshiyo mid siyaasadeed iyo mid dhaqaaleed iyo mid umadeedba iyo xadaarad baa dhalata. saddexdaa shay cagsigoodu meel kastoo ay ka jiraan oo ah in baqyi ama dulmi cadaalad darro timaado, xorriyadda cagsigeeda oo istibdaad iyo gumaysi iyo hadli maysid inay timaado, iyo jahali aqoon darro ay timaado. bulshadii intaasi ku dhacda laba wax ama laba dhan midunbay u socotaa inta badan: inay noqoto bulsho isdhiibtay oo dulmiga aqbashay oo la gumaysto oo dusheeda lagu tunto, iyo mararka qaarkood dadku inay noqdaan darafka kale iyagoo aan xisaabtamin ay tadaruf maraan. dunida maanta waxaa la leeyahay xagjirnimada ha la xadeeyo ama ha la joojiyo. waxaa hubantiya inaanay xadaysmaynin inta aan cadaaladi jirin, xorriyadi jirin, wax aqoonka aan loo ogolayn inuu si xora u hadlo, la ilaalinayo wuxuu ku hadlo, la daba socdo. marnaba taasi ma suurto gelinayso in deganaanshiyo iyo xagjir la-aan ay timaado. haddii culammada xabsiyada lagu guro la aamusiyo laga hadliyo loo diiday inay hadlaan, waxaa ka dhasha waxa weeyaan booskoodoo goob madow ah, guri cidlo ah ama websiteyo internet ah inay waxwaaniyaan ama wax sharxaan dad aan ahal u ahayn, dabeetana waxyaabaha reer galbeedku tadarufka ku tilmaamayaan uu ka soo baxo. inkastoo marar badan iyaga ficilkoodu reer galbeedka uu ka tadaruf badan yahay dadka kale waxaa lagu tilmaamaya. wallahu aclam.